madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo waftigii ballaadhnaayo hogaaminayay ayaa si meeqaamkeedu sareyso loogu soo dhaweeyay degmada Qoyto oo ka tirsan gobolka Togdheer. dadweynaha aad u tiro badan ayaa madaxweynaha ku qaabilay dareen gacaltooyo iyaguna ku dhawaaqayay halku dhigi ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo waftigiisa kuwaasi oo ay kamid ahaayeen madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow degmada Qoyto iyo kuwa kale. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa socod luga ku dhex maray dadweynaha deegaanka Qoyto iyaguna madaxweynuhu gacan qaadayay bulshada. barasaabka Togdheer maamulka degmada Qoyto salaadiin cuqaal iyo waxgarad deegaankaasi ayaa madaxweynaha uga mahadnaqay socdaalka ku soo maray degmadooda iyaguna ka mahad sheegtay waxqabadka la taaban karo ee xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ka hirgelisay Qoyto waxaana ay sidoo kale halkaasi ku soo bandhigeen baahiyaha ka dhiman degmada. madaxweynaha waxa weeye siyaasi aynu maanta leenahay iyo ninka qiimaha leh ee maanta inoo jooga weeye mana qabo wuxuu qabtay in ka dambe iman doona qaban doono. waxaan inii sheegayaa haddii ilaahay uu kuu soo saaro halyey kuu shaqaynaya waxa weeye in la wada ilaashado saddex ilaahayna siiyay intuu inoo nool yahay shantan baad sheegaysaa shanta sanad baan dooranayna ayad dambe soo socota. waxa weeyaan waxqabad dawladdu waxa weeyaan aad iyo aad bay wax u qabatay waddanka waxa weeyaan dawladdii ugu waxqabadka badnayd weeyaan tani kiisa waxqabadkeedu aad iyo aad buu badayay tiradiisuna ay u badantay waxqabadkiina wuu socdaa maantana waxaan u diyaar u nahay madaxweynaha inaanu santa soo socdana ugu ridno laguna soo dhaweynayo waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca deegaankan madaxweyne iyo waftiga la socda soo dhawaada waxaanu ballan qaadaynaa sidii ay degmooyinka iyo gobollada Soomaalilandba kuugu ballan qaadayeen in aanu hiil iyo hooba kula garab taagnaano. waxaanu nahay dad garanaya wixii la gashado ka abaal gudi doona cod kaga abaal gudi doona taageero kaga abaal gudi doona gudoodi kaga abaal gudi doona difaac qaran kaga abaal gudi doona. waxaanu leenahay mudane madaxweyne anu hadal waxba halkan kimika ka oran maayo mudane madaxweyne wixii la yidhi ummaddaa tidhi ummaddii aynu maraynay baa sheegtay oo ka markhaati kacday. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde iyo wasiir ku-xigeenka amniga ayaa iyaguna iftiimiyey sida shacabka Soomaaliland ay ugu heelan yihiin una jecel yihiin xukuumadda Soomaaliland ee hogaamiye madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. joogno mudane madaxweyne intii aad joogtay waxyaabaha laga qabtay ee halkan laga qabtay intii dawladda aad u taagnayd waxa ka mid ah taangiga biyaha loo sameeyey dawladda hoose station bleskii iskuulka oo loogu ballan qaaday isagana labada kalaas 6 kalaas weeye oo labadii kale wasaaradda waxbarashada ay ku ballan qaatay runtii dadweynuhu contributionkoodu way keeneen oo waxa weeye dawladdii hoose way waageereen marka waxa weeye waa bulsho u diyaara inay iyadoo wax gashato muujiso contributionkeedii aad iyo aadna kaaga mahadnaqaysa socdaalka aad ku kala bixisay iyo nasiibka ay u heleen maanta inaad halkan adigoo meelaha ay ka mid tahay inaad soo marto ay tahay. buur iyo bannaanba waxaannu ku soo aragnay ummad midaysan ummad waxgarada ummad danteeda taqaana ummad ninka u xiiriya ninka u holholaya kala garanaysa ummad ku riyaaqsan wixii dawladda uu maanta hogaaminaya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ku qanacday oo garab taagan oo meel walba u heelan oo dariiq iyo magaalo walba taagan baan soo maray. maanta waxaynu maraynaa in dadkeennu ku qiimaynayaan madaxweynahooda iyo hoggaankooda muxuu qabtay tiina ay uga abaal gudeen oo habeen iyo maalin haddaannu saqdhaxa soconno iyo haddaannu salaad hore waabariisanaba
dadku iyagoo taagan rag iyo dumar ayaannu jidwal iyo gobol wal iyo degmo walba ku soo marray waana ilaahay mahadii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo soo xidhay xafladan ayaa u sharaxay bulshada ujeedada socdaalkooda isagoo uga mahad celiyay soo dhaweynta mugga iyo miisaanka lahayd deegaanka Qoyta ku qaabileen wafdiga madaxweynaha ee hogaaminayo dadweynaha Qoyta sida qiimaha iyo qaaha loo soo dhaweeyay aniga iyo wafdiga ila socdaba aad baan ku mahad celinaya soo dhaweynta fiican ee qiimaha iyo qaaha leh sida la sheegay waxaanu dalka ku soo wareegnay qaybo badan oo dal ka mid ah in badan baanu soo maray si aanu xogogaal ugu noqonno dalkayaga iyo dadkaygu waxay qabaan si aanu uga waranno waayaha dalka jira si aanu uga waranno qorshayaasha dawladda si aan annaga iyo dadku u xidhiidhsanaanno oo isu fahanno oo u wada soconno marka annaguna maanta socdaalkaygaan halku maraynaa taasuu daaran yahay waa noo waranteen odayaashiinni waxgaradkiinni waa noo warrameen aad iyo aad baanu idinka mahad celinaa sida fiican noo soo dhaweyseen baahiyaa la sheegay iyo arrimaha la sheegay iyo waxa la tabanayana diyaar baan u nahay haddaannu dawladdii nahay inaan wax ka qabanno oon waxaannu ka geysan karadaannu ka geysanno insha allahu tacaala marka aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida qiimaha iyo qaalaha noo soo dhaweyseen waana mahadsantihiin allah yakhlikum shukran jaziila soo dhaweyntan ballaaran ay shacabka degmada Qoyta ku qaabileen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ahayd mid guud ahaanba ay kala sinaayeen deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee madaxweynuhu marayay taasi oo ka turjumaysa dawlad jacaylka iyo hanaanka hogaamiyadeed ee Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sida ay ugu heelan yihiin bulshadu Cabsa Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco